markaan waqti ka hadlayno waxa ku jira afar taaribood waqti haddaad ka hadlaysid hadda iyo jeer madaxaaga waa inaad soo gashatid maaragtay afar taaribood oo ay ugu horeyso isbedel uu ku xigo kobac uu ku xigo planning iyo qorshayn ay ugu dambayso hirgelin waqtigu waa hadduu socdo ma soo noqdo waqtiga hadduu ku dhaafo wax kugu bedelaya ma jiro yacni waqtigu wax qiimihiisa bedeli karaa ma jiro lama kaydin kara xataa waqtiga waa qiimo aan la kaydin karin wax walow adduunka waa la kaydiyaa raashinka waa la kaydin karaa dahabka waa la kaydsan karaa lacagta waa la kaydsan karaa xataa caafimaadka iminka waxaa la ogaaday in la kaydin karo oo waxaa jira wax dhahdo tacziizu sixa in caafimaadka la kaydiyo laakiin ma suurtagal ma tahay in la kaydin karo waqtiga may lama kaydin karo waqtiga walidaalika waqtigu waa sariicu linqidaa su-aasha ugu horreyseen isweydiinayna waxa weeye maxaan waqtiga inoo faa'iideyn karaa inaan ka faa'iidayso su-aashaas waa muhiim waana su-aal istaraatiiji ah kelmad wal haddaad qorataan muhiim bay inay tahay weliba waxaan ugu talagalay dadka raba inay mustaqbalka galaan taariikhda inay waxaan ka faa'iidaystaan qof walba muhiim maaha darsigani qofka qaraar qaatay decision qaatay inuu noloshiisa wax ka bedelo isla markaasina uu noqdo lambar culus oo dunida ku soo biiray horta marka koowaad waxaad iska ilaalisaa inaad maskaxdaada wax walba u fasaxdid oo uu kugu dhaco wax dhahdo tashatud diin inay maskaxdaadu ay badato inaad ka fikirtid inaad wax walba qaban kartid kulla shay inaad qaban kartid madaxa ka saar waxyaalo xadido aad qaban kartid waxa weeyaan iska ilaali in madax ballaar uu kugu dhaco amba madax fidis uu kugu dhaco amba madaxaagu uu noqdo madax mutashattita oo wax walba qaban kara adigoo matalan ka shaqaynaya iskuul dhigashadiisa u boodi inaad ka shaqaysid inaad noqotid qof isboortka dadka wax kala qabta haddana ka shaqeeya dhinaca guurka iyo dumarka isku dhiskooda haddana mashaakilka xalliya haddana wax walba ha gelin xadid ba aragtay maskaxdaada ka ilaali inay tashattuto ay badato ay ballaarato maskaxdaada ururi shaqadu koobaad dadka naajixiinta ay qabtaan arrinta labaad waxa weeye shaqada aad qabanaysid waqtigeega u xadid limited u samee matalan istiri waxaan rabaa in aan qur'aanka xafido oo aan xafido 30 juz ee qur'aanka ah waa inaad waqti u xadidid una furnaan 6 bilood hal sano sanad iyo badh shaqo kale aad qaban oo qur'aanka aan ahayn marka waxaa la dhahdaa shaqada aad qabanaysid u xadid waqtigii aad ugu tala gashay inaad ku qabatid ha furin waqtigaaga 3 حدد كلام مضنانتن شقدا أولويات كاga حدد maxaa maanta ku ah priority maxaa ku mudan مثلا qoyska awlawiye ku ah shaqada qoyska halka hore ku qor waxa awlawiye ku ah waxbarasho halka hore ku qor waxa مثلا awlawiye ku ah inaad dhistid maskaxdaada iyo jirkaaga halka hore ku qor arrinta afaraad ee muhiimka waxa weeye ay dadkeenu inta fara badan aqoon noloshaada waa inay ku jirto waqti aad raaxaysatid waxaa loo yaqaano al-istirkhaa caqligaagu inuu raaxaysto jirkaaguna inuu raaxaysto fikirkaaguna inuu raaxaysto matalan maalintii maaha usbuuci waa inay jirto maalin aad caqliga iyo maskaxda u raaxaysid ood meesha aad dunida ugu jeceshahay ee dalkaaga aad tagtid fadhiisatid ku fikirtid waxaa la sameeya al-istijmaac waxa dhacda isku soo noqod baa dhacda enerjiyadaadii baad soo wada celinaysaa unugyadaadii baad ururinaysaa maskaxdaadii baad ka nadiifinaysaa wixii uska soo galay wax cusub baad gelinaysaa waa inaad mas'aladaana aad yeelatid arrinta shanaad waxa weeye in aad yeelatid waxa loo yaqaano alxusuul calaa mukaafa'a inaad naftaada abaalmarin siisid markaa shaqo weyn aad qabatid haddaad shaqo culus qabatid oo guulaysatid waa inaad naftaada guusha aad gaadhay
وإن سيسيد وياه بسم الله تعالى marka taasina waa muhiim dadkeenu ma yaqaanaan inay is abaal mariyaan dadka kaleeta abaal marinta iska daa adaa is abaal marinaya arrinta lixaad ee ugu dambaysa wax weeye iska ilaali waa muhiim arrintaasi inaad samaysatid barnaamijkaas oo buuxa oo u buuxisay si xag jirnimo ah isla markaasina mu'lima oo xanuun badan matalan dad baa jira ayaanta oo dhan wuxuu qabanaya buu qoraa uu buuxiyaana waqtigiisa ma geliyo waqtiyaal loo yaqaano addawaari emergencyga amba urgenska amba dawaarida amba waxyaalada aan lagu talagelin marka ay imato muxuu yaalayaa kuma talagelin marka taasina waa muhiim lixdaa arrimood marka aan fiirino waxaan ku tilmaami karnaa ikhwaani fillah walaalayaal lix arrimood oo ah inaan ka faa'iidaysano si istiraatiiji ah ibn mas'uud radiyallahu anhu saxaabigii weynaa ee nabigu barbaadiyey wuxuu oran jiray waxaan aad uga murugooda ma jirto waxaan aad uga murugoodaa waqtiga maalinka adceedu ay dhacdo een waqtiga ka faa'iidaysan waayo ee ajashaydiina ay ziyaado camalkay uu naaqusmo camalkaygiina uuna ziyaaday aad baan uga murugoodaa cumar ibn cabdilcaziiz wuxuu oran jiray وقيل أبو بكر الصديق رضي الله عنهما إن الليل هبينكو والنهار يدرارتو يعملان فيك وكاشا قيسنا يا وقفك بلادك واحد ضعيف كدغا يا وقتها وقتي با سودا سغونا وا غبوبيا وكاشا قيسنا يا من الصحة إلى المرض وحكاكا شقيسنا يا من الشباب إلى الشيخوخة وحكاكا شقيسنا يا وعول بوا أدو بركة محط قبليسا فاعمل فيهما أدونا كشقة سوري ولذلك وحيدا علماء التطوير علماء كشقايا هرمركا بني آدم كشقايا وحيدا هذان وحالا غورتغا عجزيغا إيا كسلكا إن وقفكو سمايو وحنفتي سكو علص ومركا دمنا عادة النقطة وحالو يقانا كيف نكتسب عادات سيانو كسبنا عادوين أن الهنجرين كيف نقلل العادات السيئة عادات كحن سيدان ويرينا كيف نتجاوز العادات السيئة سيدان ودافنا عادوين كحن يمكن نفتي ذا واحد لو قاتا تبرر في عن لكن تبرك هو مهم سر وحويان المقاومة إن الله هرتو ريزيستانس كسلك هو وحكينا إن ضدكو أي هرمر سمين ويان وقت جالك فيسكر ويان بركة لابد من المقاومة أنت الله بعد وحوي الإيجابية إن نرشة وإركتسي بوزيتيفا همرغون على علم هجاجر روحي إسكا إلالي نرشة وإرك ميدان أدو بحقيقة بسكرتين حتى كنا لو ميل دقال كسعودو وإرك نرشة بريتو لإني ما تقف إعلان كتو النبي يقول عليه الصلاة والسلام هذي قعدت هذا كجر تلان وفي يد أحدكم فصيلة ساعدين أي سركة عيسو وأودو يرتدينا بيرتد بير هقولون المحارو بير قيامي وعد عيامي هقولون إن دقال باس عضو وان دمانيا هقولون إن وان دكتور بيان كجرة وانجري سنة هقولون إن عضو الحنبا يقول عي هقولون إن آباهي يقول كاجة يقول عي أنا وان كاجة وعيا هقولون إن واحد دقانا هي وضن دبو يالا أو دباتة فرا بدل عي تابو هقولون وحاسونا وحتى هذا أقدر وان كرا أستطيع وان أودا أريد وان ربا وحان أود لهي إن أن إسبدل سمايو نرش يدان كو سمايو سي بوزيتيف أو فكر قفك السيدة أو فكر هم تيسا وكيف يدسا كرا من هذا والوضع وحين هذا قبل كل عمل شقول قبل يزيد وحاكوها الرئيسة نفسية مستعدة للعمل سيكولوجيكال أهان نفق ديار إنا شقيسو هذا النفط ديار هينا شقيسو ما شقين كريسو marka waa in nafta la diyaariyo arinta labaad waa taa weey arinta saddexaad waxa weeyaan qalin iyo buug qaado rattib al-umur tartiibi waxa ku hor yaala badala shaqa la'aan baa ku haysa ka fikirsa shaqo ilaahay amalka quraanku wuxuu bixiyay afar quraanku wuxuu shaqeeya wa qul i'malu shaqa qabta
مالك القرآن يقول وصارعوا ترتمى مالك يقول وسابقوا برتما مالك يقول فليتنافس المتنافسون وحيبحيين علماء واوين السرعة والإنجاز dadka horumarka gaara waxay leeyihiin degdeg iyo waxqabad surca iyo injaaz ay la soco kelmadda waa inaad wax soo saartid waa injaaz wax qor wax akhri wax biiri nolosha wax ku soo dar injaazka ninbaa ciyaartoy weyn noqday ad maxay kugu taala miisi ad ina ka sheegaysid maxay adig kugu taala adi adwa miisi baa tahay anta lasta miisi malaayintu haystar maysatid بقى قولي حنعوني صالحوها يا عنجارة يسوون حنعوني الذهب وكعوني عنطر ثلاثة وقتها سكري هذيك وقتها كفاية شو ما حد كفاية سنة ساعة وهذا إنجاز وإنجازي سأضعوا إنجازي دقيقة وجه شغل دقيقة قبل اسرع في الخطوات عاجزا لغوري السرعة والإنجاز لبدا بالقرآن إنك ضربي وصارعوا وسابقوا مع مرة قبل إنجاز وحبان إنجازين حاصل ضارنا اوكي مستقبل كان سنبغى شقينا بالتخطيط بلانك والعمل الاستراتيجي وانا سكون دايرنا مستقبل كان إنا بريتولا نرشا الرقم النقط لذلك ايها الاخوه وحان كد بالدي كرنا كحسي كرنا maaha waxaan la samaynayo ee ah in habeenkii la soo jeedo oo la ciyaaro oo music la tumo oo la rido rash la rido oo la yiraahdo maalin cusub baa bilaamaysa hatta maalinta cusub maaha maalin cusub waa maalimaha la mid ah laakiin waxay maalimaha ka duwan tahay inay u ekaan weydo maalinta shalay toole lidaalika waxaa dhada qofka maalintiisu shaliisa weeysa uu khasaaray hada adiga shalaydaadiya maalintaas ku ekaato waad khasartay haday labada babood kala duwanaan waayaan dhinaca fikirka dhinaca visionka dhinaca horumarka dhinaca wax soo saarka haddaad sidaa wax u arkaysid ay biiri weydo ay kordhi weydo oo sidaad u arkaysay sanado ka hor ilaa maanta aad u arkaysid maxaa male inaad rash turturtid oo tiraa sanad cusub baa inoo qortay oo isku soo qorno waraaqada aan leenahay sanad wanaagsan ama aan isku sheegayna sanado fiican iyadoo oo sanad wanaagsan ay iman karto shaqo ayna ku ibanayn hadal iyo af ku ibanayn walaalayaal waxaan rajaynayaa shaqo wanaagsan iyo camal wanaagsan iyo kala faa'iidaysi wanaagsan inta dib u kulmi doona insha Allah darsigan mid la mid ah oo ka duwan duruustii siyaasiga ahayd oo ah darsi tababar iyo cilmi iyo aqoon aan isku wadaarsan insha Allah dad fara badan baa ay soo qorayo iguna waxaan rabnaa inaan maalin su'aalo aan ku weydiino waan samayn doonaa insha Allah usbuucyada soo socda istaraatiijiyadda sanadkan ee cusub oo isbedel baad ka arki doontiin dhinaca warbaahinta insha Allah aan samaynana inta aan kulmi doono waxaan naga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo